بسم الله السلام عليكم كسو دو حلقة شناد برنامج كيني نولل عافمات قبطة كورتاقو وحكو ناكسين هي دوينتا قضب كان نوحان وقهر لدونا سدح ذا عدان عذر كأه سدح ذا عدان عذر كأه حانونا ضد بس عضو يسيد اللوغو هرتي كرب الله والله 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 الله والله 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 الله والله 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 الله والله 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 as I look to nature saddex cunto oo aan caadeysanay isla markaasna cudur noo ah saddexdaas waxay kala yihiin sokorta cusbada iyo baruurta ama cadiinta mararka qaarna waxa la lahaa sokorta cusbada iyo burka noociisa refinedka ah ama burka laga sameeyo qamadiga cad walaalayaal saddexdaas shay annagu waan caadeysanay aad ayaan u isticmaalnaa balse maxaa ka dhashay miis weydiinay runtii sokorta aad ay u macaan tahay cunto walbana waa ku isticmaalnaa cabitaana u baahanahay sokorkeen shab shaaxa u baahanahay sokorkeen shab aaway cambuuladii sokorti canjeeradii aaway sokorti kulli shay sokoran ka buuxinaa waa wax yar oo macaan wax ka yar sakano ayaa calaalinaysa oo liqaysa balse jirkaaga markay ku badato waxay ku keenaysaa xaalad la yiraahdo hyperglycemia oo ah sokorta inay jirkaaga ku badato sokortana sida ogtahiin ma u baahnin inaan isticmaalno sokor caadi ah oo ku darsano shaax ama caano ama wax kale maxaa yeelay waxaa naga badan sokorta aan ka helno cunooyinka kale sida bariiska baastada canjeerada iyo wixii la midka ah cusbada aan u imaano cusbada waa ognahay waxa uu isticmaalnaa si aan caadi ahayn cunto walba karinayno cusbo waayahay cusbada iyadana walaal waxay keentaa haddii cusbo badan jirkaaga ay gasho waxaa ku dhacaya wax la yiraahdo salt retention oo ah jirkaaga inay cusbada ku badato biyaha inuu ku yaraado taasna waxay keenaysaa barar Soomaalida way taqaanaa dadka markay cusbada aad u isticmaalaan waxay u yaqaaniin cadow cudurka cadowga ee dhahan waxaa jiro kale cusbada runtii waxaa daba socdo xaalado kale oo xunxun oo ah pressure-ka inuu aad u kaco ama dhiig kar waxa la yiraahdo haddii cusbada aad u isticmaashid dhiig kar ayay keeni kartaa qofka da'diisa markay meel dhaxad gaarto dhanka kale dufanta walaal dufanta waxa daba socda intaas oo problem wax faa'iido ah ay noo leeyihiin ama uga baahanahay dufan ma jiraan haddii jirkaaga ay ku badato waxay keentaa cholesterol ama dhiigga in uu saliidoobo inuu kugu dhaco beersaliid wax la yiraahdo ama fatty liver iyo xanuuno fara badan saliidoobista dhiigga ama jirka haddii ay dhiigga ay ku badato dufanta waxay dhalin kartaa xanuuno wadnaha xanuuno dheefshiidka la xiriiro xanuuno maskaxda iyo neerfaha la xiriiro iyo kuwa kale oo fara badan okay waxaan rabaa inaan kula wadaago taariikhdeydii oo aan iskaga dhaafay sokorta waxaan ku guuleystay inaan joojiyo sokor ama inaan yareeyaba sida ugu yar inaan u yareeyo yani muddo hadda ku dhawaad 5 bilood ayaan arintaas ku guda jiraa sidee u sameeyay bal ila ogow caadiyan waxaan dhahnay sokor fara badan ma u baahnin sidaanan uga baahnayn caloosha markii loo gudbo oo laga gudbo afkaan iyo hunguri mareenka caloosha ma taqaano shaygan waa macyahay shaygan waa yani dhanaan shaygan waa qaraar ma taqaano laakiin waxay taqaanaa wax loo yaqaano kan waa carbohydrate nafaqa ku jirto kan waa protein kan waa fats ama lipid waaye kan waxa ku jira mineral kan vitamin waaye waxaasay qortaa macnaha caloosha ee ma qorto macaan iyo maxaa la dhihi jiray qaraar iyo wax la mid ah okay noloshaadu idil ma waxa xabsi u gelinaysaa dureelkan yarka ah oo inta ku yaalo oo asaga dhan lagu sii juri doono wax ka yar 5 second su'aalan ku weydiiyo haddii cunto aad afki gelisid imise daqiiqo ayaa calalisaa meeqa daqiiqo ruugtaa cuntadaas 10 daqiiqo 20 daqiiqo miya kugu qaadataa jawaabtu waa maya balse 2 second ilaa 3 second ayaa hal mar calalisaa deetana waa liqdaa marka bal ka waran afkan yarka ah miya xabsi u galeynaa
afkan yarka ah miyaan nafsadeena u ciqaabaynaa, miyaan nafsadeena ugu horseedaynaa cudurro halistooda ay fara badan tahay? walaal afkan yarka ah in aad ka xoroodid ayaa loo baahan yahay. sokor waxba kaalama maqna, balse afkan ayaa macno u yeelaya. cusbo waxba kaagama maqna, balse godkan yarka ayaa macno u samaynayo. dufanna isagaba macaan lahayn, soo maahan? okay, waxaa u baahannahay in aan ka xorowno sokorta, cusbada iyo dufanta ama burka ka samaysan qamadiga noociisa cad. walaal waxaan rajaynayaa ugu yaraan muuqaalka inaan wax ka faa'iidin. waxaa u baahannahay marka haddii aan ka xorowno saddexda caddaan ee cudurka ah, waxaan helaynaa nolol caafimaad qabtaa. mar walbana ogow, ka hortagu wuxuu ka wanaagsan yahay daweynta. waxaan rajaynayaa muuqaalkan ugu yaraan inaan wax un ka faa'iiday. la wadaag asxaabtaada, lana share garee. waxaan ku kulmi doonaa muuqaalka xiga. mahadsanid.